maantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. mudana guddoomiye ku-xigeen xildhibaanada sharafta leh, waxaa sharaf weyn noo ah maanta in wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ay idin hor keento heshiiska caymiska ay wada galeen Soomaaliya iyo hay-adda damaanadda maalgashiga darafyada badan MIGA Multilateral Investment Guarantee Agency. sida aad dhammaantiin ogsoon tihiin ama aad ka dherigsan tihiin, muddo dhowr iyo 20 sano ah kadib burburkii hay-adaha dowladda Soomaaliya ku dhacay iyo shuruucdii iyo dhaqaalaha dalka, waxaan xubno buuxa ka ahayn ururo badan oo ka mid ah kuwa ganacsiga adduunka, waxaana soo ifbaxday inaan luminay xubinnimadii ururada ay Soomaaliya ka mid ahayd. runtii ganacsiga Soomaaliya wuxuu ahaa ama ku dhacay burbur lixaad leh, wuxuuna muddadaas burburka ahaa mid isagu iswada, maadaama ay baaba'een kaabayaashii dhaqaalaha dalka iyo ilihii wax soo saarka, isla markaana sharciyadii dalka u yiilay aan lagu samayn review ama horumarin. sidaas darteed dhaqaalaha dalku wuxuu ahaa mid gaabis ah, laakiin nasiib wanaag Soomaalida oo ah muxuu ahaa dad ganacsiga aad u wanaagsan ayaa ganacsatada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxay u guntadeen sidii dhaqaalahaas burburay ama servicekii loo baahnaa ay kaalintaas u buuxi lahaayeen. mudana guddoomiye ku-xigeen xubnaha baarlamaanka ee sharafta leh, hay-adda damaanadda maalgashiga darafyada badan ee MIGA waa hay-ad caymis insurance agency oo caalami ah oo ka tirsan kooxda bangiga adduunka World Bank Group, taasoo dhiirigelisa maalgashiga waddamada soo koraya ama kuwa ay ka jiraan dhibaatooyin keenaya in ganacsatada ama maalgashayaasha caalamiga ah ay ku aamini waayaan hantidooda, iyadoo siinaysa maalgashayaasha damaanad qaad siyaasadeed ama waxa loo yaqaan caymiska halista siyaasadda political risk assurance. hay-adda hadafka loo aasaasay waa inay taageerto koboca dhaqaalaha, hoos u dhigidda saboolnimada iyo horumarinta nolosha dadka. bilowgii waxaa hay-adda la hindisay bishii Sebtembar sanadkii 1985, waxaana fikirkaas taageeray bangiga adduunka, laakiin ugu dambeyn waxaa la aasaasay sanadkii 1988. waxaa hay-adda markii ugu horreysay lagu bilaabay 29 waddan oo adduunka ka mid ah oo saxiixay heshiiskii ugu horreeyey, waxaana hay-adda ku wada jira dhammaan waddamada inta badan caalamka, gaar ahaan waddamada warshadaha leh iyo kuwa soo koraya intaba. waddamada soo koraya waxaa ku jira ilaa 156 dowladood, kuwa warshadaha leh waxaa ku jira 25, marka waxay isku noqonayaan 181 dowladood dalka ku jira.
kamid noqoshada hay-adda damaanadda maalgashiga darafyada badan runtii loo yaqaan multilateral guarantee agency waxaa markii u horeysa soo jeedinteeda iska lahaa wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha oo ay weeliyaan ganacsato Soomaaliyeed Somali Business Council waxayna ka soo baxday shirki ay yeesheen golaha iyo xubno ka socda golaha ganacsatada Soomaaliyeed taasoo ay qabanqaabisay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyadoo la tixraacayo heshiiskii London ee wada shaqaynta iyo wada hadalka dawladda iyo ganacsatada ama waxa loo yaqaan BBD dood dheer oo la xiriirta dhiirigelinta maalgashiga dalka iyo suuqgeynta wax soo saarka kadib waxa dawladaha iyo golaha ganacsatada ay hoosta ka xariiqeen inay muhiim tahay in la helo hay'ado caalami ah oo adduunka laga aqoonsan yahay oo damaanad u noqda maalgashiga caalamiga kuna dhiirigeliya maalgashatada caalamiga ee doonaya inay maalgashadaan Soomaaliya mudane gudoomiye ku-xigeen xildhibaanada sharafta leh heshiiska miga waxaa Soomaaliya u saxiixay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya bishii Febraayo 13keedii 2018 waxaa ka soo tala bixiyay heshiiska xafiiska garyaqaanka guud ee dawladda bishii Abriil 3deedii 2019 wuxuuna cadeeyay xafiiska garyaqaanka guud inay fursad u tahay dawladda Soomaaliya heshiiskan in lagu soo kordhiyo maalgashiga waddanka wuxuu xafiisku ku taliyay garyaqaanka guud in la dhammaystiro wixii habraac sharci ah ee loo baahan yahay wuxuu xafiisku hubiyay in heshiiskani uu yahay mid caalami ah isla markaana uusan ka hor imaanayn shuruucda u degsan dalka gaar ahaan sharciga maalgashiga oo horay baarlamaanku u ansixiyey wuxuu kaloo ku tala bixiyay heshiiskan waxaa kaloo hore looga ansixiyay golaha wasiirada bishii Abriil 4teedii 2019 wuxuuna runtii muhiim u yahay horumarka dalka kobcinta dhaqaalaha wax soo saarka dalka dhiirigelinta ganacsiga iyo maalgashiga iyo shaqo abuurka loo sameynayo dhalinyarada Soomaaliyeed mudane gudoomiye ku-xigeen xildhibaanada sharafta leh muhiimadda ay noo leedahay ku biirista miga waxaa ka mid ah in maalgashanaya waddamada soo koraya ay u baahan yihiin nooc caymis oo cayimaya hantidooda sidaas darteed miga waxay bixinaysaa damaanadaas maadaama dalkeennu uu soo maray burbur dhaqaale isla markaana weli uu u baahan yahay maalgashayaasha caalamiga runtii in loo helo maalgashi waddamada maalgashanaya waxay kaloo laga maarmaan u tahay iyadoo waddamo badan ay xadideen maalgashiga la maalgashanayo Soomaaliya marka wuxuu albaabada u furayaa dawladaha iyo ururada caalamiga iyo ganacsatada caalamiga intuba inay ku dhiiradaan inay dalkeena maalgashadaan meelmarinta heshiiska miga wuxuu kaloo sare u qaadayaa kalsoonida ganacsatada iyo maalgashatada Soomaaliyeed maadaama ay helayaan ganacsata kula shirkooda ganacsigooda oo ku dhiirada inay maalgashadaan ilaha wax soo saarka dalka sida beeraha xoolaha kalluumaysiga iyo wixii la mid ah sidoo kale heshiiska miga wuxuu inta badan uu yareynayaa khatarta maalgashayaasha wuxuuna damaanad hoos u dhigayaa khataraha la xiriira maalgelinta wax soo saarka iyo warshadaynta dalka ama political risks mudane gudoomiye xildhibaanada sharafta leh ka maqnaanshaha heshiiskan iyo kuwa lamid ah
oo badan waxay dib u dhac weyn ku yihiin yoolkeenna ah kobcinta dhaqaalaha waddanka iyo in la hormariyo guud ahaan dhaqaalaha dalka lana maalgashado Soomaaliya. mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh waxaa dhammaanteen waajib dastuuri ah naga saaran yahay ilaalinta danaha dalka iyo dadka Soomaaliyeed iyo inaan ka shaqayno horumarkiisa dhaqaale ee waddankeena. sidaas darteed waxaan si qoto dheer uga baaraandegnay kuna qanacnay in heshiiskaani wax dhibaato ah uusan u keenayn dalka iyo dadka Soomaaliyeed waqti dhow iyo mid dheer intaba. runtii heshiiskan shuruucda lagu maamulayo waxay noqon doontaa shuruucda u degsan dalka, gaar ahaan sharciga maalgashiga iyo sharciga shirkadaha oo hadda hor yaal aqalka sare horena aad u ansixiseen. mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh heshiiskan la'aantiis waa adkaanaysaa in maalgashato caalami ah ay dalkeenna maalgashadaan kuna soo dhiiradaan maalgashayaasha. wuxuuna ka mid yahay waxyaabaha nala weydiiyo oo ugu muhiimsan marka aan doonayno maalgashi shisheeye ama maalgashi ganacsato caalami ah dalkeenna oo aan ku tagno safarrada dalalka aan danaynayno inay Soomaaliya mustaqbalka dhow ay maalgashadaan. sidaas darteed waxaan idinka codsanaynaa idinkoo gudanaya waajibaadkiina dastuuriga isla markaana og in heshiiskan uu qayb ka yahay World Bank Group oo ka mid ah hay-adaha haddaba taageera dhaqaalaheena oo nagala shaqeeya horumarinta ganacsiga iyo maalgashiga intaba. waxaan idinka codsanaynaa idinkoo gudanaya waajibaadkiina dastuuriga isla markaana ogsoon heshiiskan inuu yahay confession caalami ah oo aan waxba laga bedeli karin, isla markaana dunidu dhammaanteed ay ka mid tahay, Soomaaliyana ay u baahan tahay. waxaan doonaynaa idinkoo gudanaya waajibaadkiina dastuuriga inaad sida ugu dhaqsiyaha badan u ansixisaan isla maanta heshiiskan caalamiga sida aan u bixinno dhaqaalihii nala kaga baahnaa oo dowladda Soomaaliyeed ay diyaar u tahay, isla markaana uu ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya uu ku bixiyey wasaaradda maaliyadda markii baarlamaanku uu heshiiskan ansixiyo in wasaaradda maaliyaddu ay dhiibto lacagtii xubinimada ee nala kaga baahnaa, isla markaana bangiga dhexe ee Soomaaliya uu qoro damaanadii heshiiskan inaad maanta noo ansixisaan maadaama uusan ahayn wax isbeddel lagu samayn karo oo muxuu ah uu yahay baahi annagana haysa, isla markaana wax haba yaraatee ka hor imaanaya sharciyada dalka u yaallo intaba uusan ahayn. dhaqangalkiisuna waad mahadsantihiin. waxaan u qabnaa heshiiskan dhaqangalkiisa baahi weyn ee aan dedejino dhammaanteen. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.